guddiga taakulaynta abaaraha ee gobolka Salel ayaa deeq raashina oo isugu jirta sonkor bariis saliid iyo timir gaarsiiyay 50 qoys oo kamid ah dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanka Biyaqasan oo kamid ah sabadka magaalada Saylac. qaybintii deeqdani ayaa waxa goob joogay ka ahaa barasaabka gobolka Salel mudane Farxaan Xasan Cabdi oo isagu deeqdan uga wakiil ahaa ururka Somali Women Development Center qaybtiisa gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo isagu deeqdan soo gaarsiiyay waxaana deeqdan si gaar ah loogu xusay Marwo Caabiya Ciise iyo Ridwaan Rooble oo iyagu xanuunsanaya kana mid ah ururkaasi. waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka Salel mudane Maxamed Muuse Bucul. alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan uga mahadnaqaynaa taakulayntaana soo gaarsiisay sidoo uu sheegay ururka Somali Women Development Center oo soo gaarsiiyay Rooble Xasan. waxaan halkan uga ducaynaynaa in Ilaahay uga baryaynaa in uu xanuunka hayo ka dulqaado Caabiya Ciise. Ilaahay ha ka dulqaado xanuunkaas bifadli karaamada Ilaahay Allah kaga dulqaado inta muslimiinta muxsiniinta halkan maanta joogtay ka faa'iideysan deeqdaana Ilaahay carabkooga kaga dulqaado. waxaan u baryaynaa dhammaan in Ilaahay ka dulqaado iyada iyo Ridwaan Rooblena waxaan Ilaahay uga baryaynaa isagana in Ilaahay xanuunkaas ka dulqaado oo uu noqdo mid caafimaadkaas taam uu noqdo. waxa kale oo isaguna halkaasi hadal mahadnaqa ka soo jeediyay barasaabka gobolka Salel mudane Farxaan Xasan Cabdi oo noo soo diray ninka uga mas'uula ururka maxaa la yiraahdaa Somali Women Development Center qaybtiisa Minnesota Rooble Xasan oo uu noo sheegay inay u soo dirtay isagana gabadh xanuunsanaysa oo la yiraahdo Caabiya Ciise. raashinkaas lacagta oo aanu siinay 30 qoys oo kamid ah dadka tabaalaysan ee abaartu ay saameysay. soddonka qoyskiiba waxaanu siinay haaf bariisa, haaf sokora, caagad saliida iyo kartoon timira. ma sha Allah waa raashin wanaagsan. waxaan ugu ducaynaynaa oo dadkaasina aanu ka codsanaynaa inay u duceeyaan gabadha xanuunsanaysa ee Caabiya Ciise iyo inanka maxaa la yiraahdaa Rooble Xasan inaan uu dhalay oo isagna xanuunsanayo hadli waayay oo ay la yiraahdo Ridwaan Rooble. ugu dambeyntii qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iideystay deeqdani ayaa halkaasi uga duceeyay shakhsiyaadkii soo diray deeqdaasi gaar ahaan kuwii ku suntanaa Rooble iyo Caabiya Ciise xanuun baa Ilaahay baa ka dulqaaday. Ilaahay baa xanuunka ka dulqaaday sida ay wax ugu soo dirtay dadka ummadeeda tabaalaysan iyadana xanuunka Ilaahay baa ka dulqaaday. Ilaahay baa ka dulqaaday. Ilaahay baana wax u hayay. Ilaahay baanu barinay anagu waxba ma hayna Ilaahay baanu barinay. Ilaahaygiin weynaan u barinay baa ka dulqaadayo walaal. Bismillahir rahmaanir rahiim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Xaawo Ilaahay ka sawaabay gabadha Caabiya Ciise. Caabiya Ciise Ilaahay weynaa ee waaxid ahaay caafimaad baa siin. Ilaahow wax ka dulqaad dabaysha gobolka dhacaya Ilaahow ha gaarsiin. ma Rooblena Ilaahow ha gaarsiin. Ilaahay weynaa ee waaxid ahaay wanaagsanow Ilaahay baan barin awliyadaan barin